Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada channelkii Ogaalka Xogaha. Waxaan maanta halkaan idinku hayaa Allah u naxariistay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde iyo taariikhdiisa kooban. Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde waa madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya isagoo madaxweynaha Soomaaliya ahaa intii u dhaxaysay 1960 ilaa 1967. Aadan Cadde wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne sanadkii 1908 wuxuuna waxbarashadiisa dugsiyada Qur'aanka hoose iyo dhexe ku qaatay magaalada Muqdisho. Intaa wixii ka dambeeyay waxa uu sameeyay dhaqdhaqaaq ganacsi inta uusan ku biirin ka hor xisbigii Leegada SYL bishii Febraayo sanadkii 1944. Walow uu ka soo qabtay xilal aad u fara badan, haddana sanadkii 1959 doorashooyinkii guud oo ka dhacay dalka waxaa loo doortay mar kale inuu noqdo guddoomiyaha golaha sharci dejinta ee koonfurta dalka Soomaaliya, wuxuuna xilka hayay ilaa golihii sharci dejinta uu noqdo Constituent Assembly. Taasna waxay u horseeday inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay soo mara dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii ay midoobeen labada gobol Waqooyi iyo Koonfur Jamhuuriyadda Soomaaliya 1 Luulyo 1960. Golihii baarlamaanka ee ugu horreeyay oo ay Soomaaliya yeelato 1 Luulyo 1960 uuna guddoomiye ka ahaa Mudane Xaaji Bashiir Ismaaciil Yuusuf ayaa ku dhawaaqay midnimada labada gobol Waqooyi iyo Koonfur iyo dhalashada Jamhuuriyadda Soomaaliya una doorteen Mudane Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde inuu noqdo muddo 1 sano ah madaxweyne ku meel gaar ah. Sanad kadib waxaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha muddo 6 sano ah, wuxuuna dalka madaxweyne ka ahaa muddo 7 sano ah. Aadan Cadde wuxuu ku hadli jiray 3 luqadood: afka Talyaaniga, Ingiriiska iyo Carabi. Doorashooyinkii ka dhacay dalka sanadkii 1967 waxaa looga adkaaday doorashooyinkaas Aadan Cadde, wuxuuna xilka madaxtinimo ku wareejiyay madaxweynihii ka dambeeyay ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Aadan Cadde waa ninka kaliya ee Soomaaliya iyo Afrikada Madooba ugu horreeyay oo si sharaf ah xilkiisa ku wareejiya kuna mutaystay in adduunka laga xushmeeyo ilaa iyo maanta. Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde waxa bishii Juun 8 sanadkii 2007 uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Aadan Cabdulle Cusmaan waxaa lagu aasay magaalada Muqdisho 11 bishii Juun isla sanadkaas. Geeridiisa kadib waxaa lagu magac daray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulle Airport. Aad baan kaga mahadcelinayaa daawashada fiidiyodan. Haddii ay tahay markii ugu horeysay, ha ka ilaawin inaad tiraahdo subscribe, fiidiyowga ku caawinin like, share, la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.